gudoomiyaha ku-meel gaadhka xisbiga mucaaradka wadani ahna xildhibaan ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdilqaadir Jidde ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku eedeeyay isaga iyo xukuumaddiisu inay hor istaagteen mooshin lagu doonayay in komishanka doorashooyinka laga dhigo 9 xubnood kaasi oo goluhu saaka diiday isla markaasina la fasaxay muddo 45 maalmood ah. Cabdilqaadir Jidde oo saxaafadda kula hadlay aqalka baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa isagoo arintaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa oo idin faahfaahiyay qaabka laakiin maanta mid baa muuqata waxa muuqatay in anagoo ka xun hadalka inay dhahdo in golihii wakiilada ay xukuumaddu la wareegtay waanu dareensanayn inay fariintaas ku socoto oo gudoomiyaha culays lagu saaray golaha naga xidh warka waanu haynaa abasguul meel lama ku wadato iska warhaysaa baa leeyahay waanu ogeyn culays lagu hayo gudoomiyaha golaha wakiilada la leeyahay naga xidh hadda waxa laga xidhayaana waxa weeye waa wax saddex xisbi ku soo heshiiyeen oo saxiixii madaxweynuhu ku yaalo ayaa haddana madaxweynihii xukuumaddiisii golihiinta ka daba yimaadeen leeyahay xidh oo arrintaa dhigin maanta ummaddu waxaan u sheegaynaa golihii wakiiladu ma madax bannaana shirgudoonkii waa laga maroorsaday xukuumaddaana maroorsatay in golaha la xidhay in mooshinka la soo taagana xukuumadda ka dambaysa cid kale ka dambaysa ma jirto annagu gariiqaankan ku eedimayno shirgudoonkan ku eedimayno waa loo yeeriyay xaggaas laga soo yeeriyay warkana waanu haynaa in ayaamaanba culays lagu helo golaha xidh ee waxa dhashay leedahay xamse jaamac xuseen xamse awowo Star TV Hargeysa.